السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل تونا سند ودايش إذا قيمها يقدرين تيشرفت أنا قبل قصة بعضها وركنا قاشان ودني سمالي تي في أنا حسين حسن عدنا وايدي ورميا شركة مدوينكي دنبها وسعودي دولة فدرالك الصومالية يسيدو كلا حمنا كمدا دولة قبلية دالك الصومالية قاركود ولك السعودة مجرد مقدسة عاصمة دالك الصومالية شركة أي لها تمحل شيء يا شركة رسمي لا سقاف قرن السمر كان ولي أجران توشون يتمنى يا مدحونيا شبوتنا يسيدو كلا جبلانا شركة ما أنت سر رسمي وقفر من عاصمة الصومالية مقدسة السمر كان لودي ذي إذا كان بقشة صحافة مدح بنا يا ورخر دعوة سوق يا أي شيء يعني الشركة جبهها بلا سقاف قرطي عن جدياش كمدا shirarka doorashooyinka iyo sidoo kale arrimaha kale oo ka taagan xarada dalka Soomaaliya gaar ahaan doorashooyinka ay ka wada hadleen madaxda dawladda federaalka Soomaaliya sidoo kale madaxda dawlad goboleedka dalka Soomaaliya arrimo kale oo muhiim ah doorashada dalka Soomaaliya sidoo uu qabsoomi lahayd shirka doorashooyinka iyo sidoo kale caqabadaha kale ee ku xiran madaxda ayaa la filayaa inay soo salaaman doonaan maalinta ku beegan tahay 6 bisha Abriil 2021 waxaana la filayaa shirkaasi dib u furmi doona maadaama ay lahaatan shirkaasi wax qodobo muhiim ah aysan ka soo bixin shirka ayaa wali sii socon doona ilaa caawa saxda dhexe wali wax warar shirkaasi kama soo bixin walow ay saxaafadu madax banaan sheegaysan shirkaasi gabi ahaan aysan ka qayb gali doonina wararka kiilanaha xirada afisyonaha ilaa haatan shirka uga socda madaxda dawladda federaalka Soomaaliya iyo madaxda dawlad goboleedka dalka Soomaaliya qaarkood ayaa sheegaya in shirka wali aan wax rasmi ah ka soo bixin markaa la filayo in 6 Abriil bishan gudaheeda 2021 dib la isku soo laaban doona iyadoo warar hordhac ay sheegayeen shirkaasi la saaf gartay arrimaha doorashooyinka iyo sidoo kale arrimo kale oo muhiim u ah doorashada dalka Soomaaliya Xuseen Xasan Cadde shabakada wararka gaashaan wadani Soomaali TV magaalada Muqdisho